kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada muuqaaladii aad nooga barateen Sayid Abu Media kuwaas oo aan idinkugu soo gudbino warbixino xiiso leh oo ku saabsan xaafadaha magaalada Toulouse ee dalka Faransiiska. maanta warbixinteena waxa ay diiradda saaraysaa mid ka mid ah jaamacadaha ugu faca weyn dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Toulouse. balse inta aan warbixinta idin soo gudbin waxaan idinka codsanayaa qof walba oo daawanaya in uu channelka subscribe saaro si aad noogu garab istaagtaan horumarinta barnaamijkan. haddii aad horey nala jirtay waad ku mahadsan tahay taageeradaada joogtada ah. jaamacadda Toulouse Jean Jaurès waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu faca weyn ee ku yaala dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Toulouse. waxaa si gaar ah diiradda loo saaraa culuumta bulshada, farshaxanka, luqadaha, taariikhda iyo dhaqanka. jaamacaddan waxay salka ku haysaa taariikh qoto dheer leh oo dib u noqonaysa qarnigii 13aad markaas oo Toulouse laga aasaasay kuliyadda farshaxanka sanadkii 1229. sanadkii 1970 jaamacaddii hore ee Toulouse ayaa loo kala qaybiyay dhowr jaamacadood taas oo dhalisay jaamacaddan waxaana markii hore la oran jiray Université Toulouse Le Mirail. sanadkii 2014 waxaa magaceeda loo bedelay Université Toulouse Jean Jaurès taas oo lagu maamusay Jean Jaurès oo ahaa siyaasi qoraa iyo falsafadyahan caan ah oo u dhashay Faransiiska. jaamacadda waxay ku taalaa xaafadda Mirail ee magaalada Toulouse. waxay caan ku tahay naqshad gaar oo casri ah ay sameeyeen 3 injineer oo lagu kala magacaabi jiray Georges Condeli, Alex Josik iyo Shadqaq Wood, kuwaas oo qaab dhismeedka dhulka ay ka dhigeen mid furan oo fududeynaya isku socodka ardayda, lehna beerar iyo jidad cagaaran oo dhexmara dhismayaasha. jaamacadda waxay bixisaa waxbarasho aad u tiro badan oo la xiriira cilmiga bulshada, taariikh, falsafad, luqado, suugaan, Faransiis, Carabi, af Isbaanish, farshaxan, muusig, muuqaal faneed, cilmi nafsiga, isdhexgalka bulshooyinka iyo culuumta deegaanka. waxayna sidoo kale leedahay xarumo cilmi baaris oo heer sare ah. Université Toulouse Jean Jaurès waxay soo dhaweysaa arday badan oo ajnabi ah, in ka badan 5,000 arday oo ka kala yimid 145 wadan. waxaana sidoo kale jaamacadda ka qayb qaadataa barnaamijka Erasmus Plus si loo fududeeyo isdhaafsiga ardayda Yurub iyo caalamka intiisa kale. Jean Jaurès oo jaamacadda lagu magacaabay wuxuu ahaa halgamaa u taagnaa cadaaladda bulshada, xurriyadda hadalka iyo sinaanta. jaamacadda waxay sii wadaa in ay kor u qaado fikradaha uu Jean Jaurès u taagnaa, gaar ahaan aragtida furan, nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshooyinka. waxaan nahay wahdiga dugsiyada, waxaan nahay wanada macalinka, waxaan nahay wahdiga dugsiyada, waxaan nahay wanada macalinka. waagii baryaba awbax laga waraabsho, waagii baryaba awbax laga waraabsho, waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta, wadankiina wax u barta, oo xambaaro waajibkiisa, oo xambaaro waajibkiisa. wahsan mayno, waaban mayno, warwareegi mayno, weecan mayno, wahsan mayno, waaban mayno.